السلام عليكم daawade kusoo dhawo Islamic Technology sidoo kale kusoo dhawo muuqaalka lixaad oo aan kaga hadlanay barnaamijka loo yaqaan CapCut oo ah barnaamij lagu edit gareeyo muuqaalada inagoo isticmaalana mobile-keena insha Allah ta'ala muuqaalkan waxaynu kaga bogan doonaa qaabka loo sameeyo mask iyo waliba qaabka loo sameeyo background mask loo sameeyo iyo walibana qaabka loo bedelo size-ka muuqaalka insha Allah ta'ala kusoo dhawaada muuqaalka saaxiibada qiimaha badan leh soo dhawaada mar kale waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka loo yaqaan CapCut sida awgeed muuqaalkan waa mid aynu hore u soo gelinay muuqaalkaas insha Allah ta'ala ku tasti gareyn doona waxyaabo aynu wadno laakiin intaynaan muuqaalkan furin waxaan ku xusuusinayaa haddii aad u baahan tahay application-kan oo 100% free comment-iga ugu horeeya aad ka heli doontaa sidoo kale haddii aad muuqaaladii hore u baahan tahay sidoo kale comment-iga ugu horeeya aad ka heli doontaa sida awgeed marka ugu horeysa barnaamijkan inuu soo furi doonaa insha Allah ta'ala waxaan soo furi doonaa muuqaalkan kadib markaan muuqaalka soo furnay muuqaalkan waxa weeyaan intaynaan background-ka ama aynaan sameyn mask background aynaan sameynin waxaan sameyn doonaa marka ugu horeysa oo aan sameyn doonaa size-ka qaabka loo jarjaray insha Allah ta'ala idin tusi doonaa ama size-ka loo bedelo halkan ay ku qoran tahay format inagoo meel kala tegin halkaas aynu taaban doonaa kadibna ratio-yinka waa ratio kala duwan kuwan waxa weeyaan kaas waa ka TikTok-ga kaas oo kale waa YouTube-ka kaas oo kale waxa weeyaan Instagram-ka waxyaabaha oo dhan waa ratio-yin kala wada duwan marka waxa weeyaan ka TikTok-ga ayaynu tusaalahan taabanaynaa ka TikTok-ga markaynu taabano waxa weeyaan background madow ah asalka ba iska leeyahay muuqaalku ilaa halkaas imika loogu talagalay inuu ahaado intaas oo dhan sida awgeed waxa weeyaan background-kan inuu iska bedeli doonaa bacdama aynu size-kii muuqaalka aynu fadhiisinay background-ka haddii aynu bedelno marka maskigana uu inoo fududaan doonaa inaynu sameyno ama inaad fahantaa ayaa ku fududaan doonta sida awgeed okay intaa kadib markaynu format-ka aynu dhamaystirno waxaan tegi doonaa halkan ay ku qoran tahay Canva halkaas aynu ku dhufan doonaa si aynu background-kan marka aynu wax uga bedelno si aynu hore u soo sheegnay marka waxa weeyaan background-ka dhowr qaab wax loo bedeli karaa inaynu adeegsano color khaas aynu soo doorano inaynu sameyno background texture ama mid aynu gallery-ga kaga soo darsanay ama midaba kala leh oo aynu kaga soo darsanay barnaamijka gudihiisa iyo inaynu isticmaalo option-ka loo yaqaan blur marka option kale blur loo yaqaan marka hore soo eegaynaa option-kaas aynu hal mar taaban doonaa option-kaas waxa weeyaan sida ku muuqata saddex blur buu inoo soo saaray kan haddii aynu doorano ama aynu taabano wax isbedelka halka ku yimaado u fiirso waxa weeyaan qofkii wajigiisa ayaa si toos uga daba muuqanaya meesha qaybtan waa qaybtii hadlaysa dhexe haddii qaybta labaad taabano waxooga wajigaas oo khafiif ah ama si fiican loo arkayn ayaa ku xiga haddaynu taabano waxa weeyaan wajigaas si fiican hata looma arkay ama lama aqoonsan karo sidoo kale haddaynu qaybta ku sii xigta taabnayno blur kana sii xoogaysanaya marka wajigii imka aad buu daciifay lixad qaybta ku sii xigtana waxa weeyaan waji yahay waxa ka dambeeya runaantii inaad garato aad bay u adag tahayba marka waxa loo yaqaan blurka waa noocaas horeynu soo aragnay barnaamijyada qaarkood blurkan haddaynu iskaga baxno ama aynu ka noqono waxa weeyaan halkan background ay ku qoran tahay tusaale ahaan taabano waxa weeyaan background-ka halka sida ku muuqata gallery-ga kaga soo dari kartaa ama kuwana dooran kartaa tusaale ahaan kan baan iska taabto u fiirso background ka dambeeyo markaa u sameeynaya automatically sida ku muuqata markiiba waxa weeyaan background buu u sameeyay okay kan aynu ka laabano sidoo kale waxa weeyaan haddaynu tagno halkan ay ku qoran tahay color halkan kalaraan fara badan baa yaala sida ku muuqata any color baa ka heli kartaa dariixdo tusaale ahaan mid ka mid ah kalaraanta iska doorano ama aan taabano ka guduudka ah tusaale ahaan doorano kadibna aan tigsiino waa tijaabun tusaale waxaan wadnaa waxa weeyaan background-ka tusaale ahaan inaan background u sameyno waa tijaabun waxyaabaha aynu wadnaa sida awgeed waxaan sameyn doonaa halka waan dib aynu uga noqon doonaa waxaanu bilaabi doonaa wax loo yaqaan mask si aan u bilowno halkan aynu ku dhufan doonaa timeline-kan hal mar taaban doonaa marka aan taabano halkan aynu u soconaynaa ay ku qoran tahay mask halkaas weeyaan okay halka mask ay ku qoran tahay markaynu taabano waxa weeyaan maskiyadu way kala duwan yihiin ilaa iyo waxay u kala baxaan wax ka badan ilaa wax ka badan 4 oo 5 qaybood meelahaas ay gaarayaan waxa weeyaan maskigu mid noocaasi iyo mid noocana iyo mid noocana iyo mid noocana iyo mid noocana laakiin haddana waxa jira option-no ku sii dhex jira ama waxa jira qaabab fara badan oo loo adeegsado runaantii marka la isticmaalayo maskiga inagoo muuqaalada dambana kuwa practical oo caadi ah anigu sidaan u isticmaalo insha Allah ta'ala ayaan ku soo qaadan doonaa laakiin waxa loo yaqaan maski waxa weeyaan kaas tusaale ugu horeeya aan dooranay ku qoran tahay split ay ku qoran tahay haddaan doorano waxa runaantii muuqaalkaaga ayuu laba u kala jaraya ama laba ka kala dhigaya tusaale ahaan
haddaynu xagga u riixno muuqaalkaaga waxa uu yarayn karaa ilaa xad haddaynu xaggan usoo riixnana maxay marka muuqaalka ayuu qayb ka jaraya sidoo kale halkan option baa yaala optionkaas haddaad jiiddo waxba isbedeli doona u fiirso optionkaas haddaan jiidno ama xaggan aynu jiidno waxa weeyaan wuxuu sameynayaa effecti muxuu ahaaye waxoogaa kalar kale ayuu hoosta kasoo gelinaya tusaale ahaan kalarkii oo khafiif ayuu halkan ka gelinaya sida kuu muuqata marka maaskigaas kaasaga qaabkaasaa loo isticmaalaa waxa weeyaan inaad ifahantaan ayaa muhiima sidoo kale ka ku xiga waxa ku qoran ka kale ku xiga haddaynu taabano tusaale ahaan waxa weeyaan sida kuu muuqata isagana waa kii oo kale haddaynu tusaale ahaan taabano koornayaasha wuxuu kaga samayn doonaa sidii kii hore oo kale khafiif kaga samayn doonaa haddii halkan taabano sidoo kale waxaanu ka dhigi karnaa mid caata ama dhuuban sidoo kale mid waxaanu ka dhigi karnaa waasaca oo ballaaran marka maaskiyada qaabkaas loo isticmaalaa sidoo kale haddaynu ka ku xigay circle-ka haddaynu taabano hoosta waxa weeyaan sida kuu muuqata waxa weeyaan wuxuu ka dhigay tusaalahaas wuxuu ka dhigay ishag circle buu ka dhigay sida awgeed haddaad tusaale ahaan marmarka qaarkood waad aragtaa qof tusaale ahaan wejigiisa oo zero intaa yare muxuu ahay circle oo keliya kasoo muuqato halkana qoraalla iyo waxyaabo kale ku qorqormayaan lyricska oo kale marmarka qaar waa loo isticmaalaa sida aad marar badan aragteen oo dadka lyricska marka waxa weeyaan haddii tusaale ahaan belegarayno tusaale ahaan qofkii wejigiisa halkaas uu ka dhex muuqanaya waayo qofkani hadal ma aanu hadlayn uu smiling buu sameynayay waxa weeyaan qofka hadlayana saas uu wejigiisu meesha uga soo dhex muuqan doona waaba haddaad maaskiga ku samayso sidoo kale iyadna waxay leedahay waxa weeyaan koornayaashaad u weyneyn kartaa dhankaasaad u weyneyn kartaa tusaale wax ka dhigi kartaa mid ukuna saasoo kale waa ka dhigi kartaa saasoo kale muuqaalka waan ka dhigi karaa sidoo kale waxaan xaggan u jiidi karaa waxaan ka dhigi karaa mid noocaas marka labada falaarood ee koornayaasha ayaa la isticmaalaya sida kuu muuqata sidoo kale waxay leedahay qaybtii effectska haddaad isticmaasho wuxuu ka dhigi doonaa mid runaantii waxa weeyaan intan marka laga yimaado waxa weeye qaybaha dambe khafiifay sii noqonaya marka qofka jirkiisa qaybaha kale waa la arkaya okay waxba qaybta inagoo markaa ku mashquulin qaybta kale ku xigtaa waxa weeyaan rectangle iyadna waa qaybta hore oo kale bay la mid tahay waxa weeyaan waxay leedahay koornayaashan iyo waxyaabaha la midka sida awgeed waxa weeyaan sidoo kale waxay leedahay halkaas haddaad taabato tusaale ahaan halkaas haddaad taabato waxay leedahay iyadna qayb tusaale ahaan ka yara dhigaysa yacni sidaasoo kale ka dhigaya wuxuu ka dhigaya wax loo yaqaano arc buu u sameynayaa qaybtana waa qaybihii aynu hore usoo aragnay sidoo kale waxaa iyadna lagu sameyn karaa qaybta muxuu ahay effectska ama muxuu ahay kalarka inuu tartiib usoo galo ayaa runaantii lagu sameynaya sidoo kale waxa uu leeyahay qaybta loofka iyadna waa qayb sidanoo kale iyadna waxba kagama duwana waxa weeye effects bay iyadna leedahay sidoo kale haddaad rabto inaad weyneyso ama aad yarayso iyadoo koornayaasha wixii kuma leh marka farahaaga unbaad labada gacmood basta ugu kala riixaysa inta taabato tusaale ahaan saadhe faraygani waa isticmaalaya ana saas mid kastaana qaybtaas u ogolaanaya optionkaas qaybta kale ku xigta waxa weeye star ama waa xidig inaad ka dhigto xidig haddaad ka dhigto sidoo kale iyadna waa sidii loofka oo kale bay la mid tahay marka waxa weeye maaski sidan oo kale loo isticmaalaa marka multiple purpose baa loo isticmaalaa ama ujeedooyin fara badan baa loo isticmaalaa runaantii marka laga hadlayo maaskiga waa laga yaabaa runaantii inaanay hadda macno badan kuu sameyneyn inaad daawato laakiin runaantii markaynu muuqaalada dambe si practical runaantii aynu wax ugu qabano insha allahu tacaala waad fahmi doontaa waxa maaskigu iyo faa'iidada uu leeyahay waana option runaantii aanu si joogta aan u isticmaalo maaskigu shakhsi ahaantayda waxa weeyaan haddaad tusaale ahaan qaybta aynu kusoo noqono loofka oo kale aynu iska saarno kaasoo kale iska muhiima haddaynu rabno tusaale waxa jira wax loo yaqaano halkan hoosta mid kastaaba uu leeyahay inference halka ay ku qoran tahay optionka hadda aad taabato waa optionkaas inference ay ku qoran tahay haddaad taabato tusaale ahaan waxa weeyaan wuxuu ka dhigayaa inference macnaheedu waa cagsiga samee macnaha intii kale dhan uu fasaxay ee runaantii uu kalarka inaga qarin jiray laakiin imika wuxuu qarinayaa intii loofka oo keliya sida awgeed waanad yarayn kartaa sida kuu muuqata dadoo gacmahaaga adeegsanaya sidoo kale waxaa ka dhigi kartaa mid effectiya leh sidii kii hore oo kale sidoo kale meesha doontaad dhigi kartaa halkaasaad dhigi kartaa halkanaad dhigi kartaa halkaasaad dhigi kartaa yacni marka waxa weeyaan ujeedooyin fara badan baa loo isticmaalaa marka inference mar labaad haddana haddaad taabato sidii kii hore oo kale buu noqonaya marka inference marka aad taabato isbedel ayaa runaantii imanaya sida awgeed waxa weeyaan soo weyneyn karaynaa halkii wejigaan ku aadin karaynaa meesha aad doonto oo jirka qofka bini aadamka ah ama muuqaalka ah ayaad ku aadin kartaa sida kuu muuqata marka maaskii wax la yidhaahdo saas ayaa loo isticmaalaa faa'iidadaas ayuu leeyahay laakiin faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa laga yaabaa ilaa hadda inaanad dareensanayn laakiin insha allahu tacaala bacdama muuqaalku inagu dheeraan doono haddaan sii wadno
insha allahu tacaala muuqaalka dambe ayaynu kaga bogan doonaa oo noqon doona muuqaal aad iyo aad u xiiso badan dad badanna runaantii ay u baahan yihiin marar badanna runaantii muuqaalada noocaasa marka barahayga bulshada ee akoonadeeda gaarka aan isticmaalo lagu arko dadku su-aalo fara badan bay iga weydiiyaan laakiin insha allahu tacaala maanta ayaan idiin ballan qaadaya insha allahu tacaala inaan maalinta beri haddii eebbaha awoodda inoo ogolaaday inaan soo geliyo marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaya inaad si fiican u aragtay muuqaaladii horena waxaan rajeynaya inaad taxano ku tahay ama soo daawatay marka muuqaaladii hore group ah ama koox ama playlist ku jira commentiga ugu horeeya insha allahu tacaala aad ka heli doontaa tan intaynu ku kulmi doono cashirkan oo kale la mid ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu